gudbiso ummadda waxyaalo aad fara badan bay doonayaan jecel yihiin horumar bay doonayaan inay wax wanaagsan ku tallaabsadaan bay doonayaan inay mustaqbalkooda aayahooda dambe inay ka sheekeeyaan ama ay magaranaysaa ay wax kaga tagaan kuwa jiilka soo socda ama jiilalka soo socdaba ay mar walba ka sheekeeyaan ay doonayaan haddaynu soo qaadano dadku marka su-aal la weydiiyo qof walba wuxuu odhanaya wax wanaagsan baan doonaya laiskuma hayataa laakiin maxaa ka dambeeya maanta tallaabada ma la qaadi karaa baa ka horeysa wax walba ma ku habboontay maanta maalintii tallaabadan la qaadi lahaa inay tahay reerku maanta ma maanta guurayaa ma berri buu guurayaa gaadad qaadkiisa ma haystaa sidee buu reerku u duuli karaa ayaa ka horeysa dagaal marka la gelayo layskama galo hubbaa lasoo urursadaa rasaasti baa la keenaa waxaa la keenaa sahayadii la qaadan lahaa dhaawaca wixii lagu soo qaadi lahaa meeshii la seexin lahaa wixii lagu kabi lahaa ayaa la eegaa marka sidaa awgeed ummaddu mar walba horumarkeeda unbaa laga hadlayaa anigu markaan hadlaya aan leeyahay aniga la weydiinayo waa run baan leeyahay waa in la furaa laakiin waa goorma ayaa mar walba carqaladay hortaalla ayaa jirtay 20 sanadood bay Somaliland jirtaa laakiin hada waxa ka dhex galay Umar guddi baa loo saaray arrintan mudana ku dhex jiray baarayay cilmibaadis badan ku sameeyay dabcan wax badan ka og hawlaha iyo hadda si wax u socdaan guddigii way ku dhawaaqay maanta in xisbiga la furto marka adigu guddida aad bay ugu maadsan hada ku haystaa guddida aad bay ugu maadsan anigu waxaan ka duwanahay macnaha wax different anigu aan hayaa ma jirto oo ummadda ka duwan maanta way khaldameen meelaha marka ma khaldamin laakiin waxa weeyaan madaxweynihii iyo golihii iyo guurtada iyo tii baarlamaanku inta buu harsan aragtidii ay dadka ka soo arkeen bay soo gudbiyeen taas awgeed baa meesha timid inay ku dhawaaqaan oo inay ku hadlaan xisbigan mucaaradka maxaafidka maanta ah wuxuu aad buu mahadsan yahay horta waayo ballan buu galay ballantii uu dadweynaha la galay buu oofinaya laakiin goorta la oofinayo ama goorta ku habboon tahay aad lama sheegi karayo marka sidaa awgeed baan waxaan leeyahay waqtigan xaadirka aynu ku jirno ee dhibaatooyinka badan aynu kasoo doognay inaynu horumar badan sameyno oo ardaydeena kasoo baxaysa jaamacadaha iyo dugsiyada sare kasoo baxaya sidii loo maareyn lahaa oo looga baabin lahaa inay magaranaysa maanta ay bad iyo qurbo ay u yaacaan ama dhibaatooyin fara badan ay galaan sidii uga badbaadin lahayn inaanu galno waddankeena waxaan ognahay anagu Somaliland waxaa loo yahay jaamacadaha kasoo baxa waxa kasoo baxa dhowr boqol arday baa jaamacadaha kasoo baxa dhowrka boqol jaamacadaha ardayda kasoo baxda nin qolo maanta ku shaqaysan karaya xirfad uu leeyahay oo gacmeed oo ama ha haato inuu xiso ama ha haato inuu magaranaysa mechanic noqdo ama inuu noqdo magaranaysa beer inuu samaysto ama inuu bad galo oo bad ka soo shaqaysto waxa dabiiciga waddanka nolosha caadiga ah nin qura oo loo soo jeeyay kuma jiro nin walba qalin buu busita jaamacad buu ka soo baxay jaamacadu ka soo baxay waxay noqotay inuu maqaayadaha fadhiisto oo ka sheekeeyo jaamacadda wuxuu uga soo baxay hadaladii wuxuu magaranaysa doonayay ama qalbigiisa niyadiisa ku jirtay inuu ka sheekeeyo doonayay dadna waxay noqotay wax la yaabo siyaasad magac siyaasadeed loo bixiyay marka sidaa awgeed in dadka la jeexeeyo ayaa waxay ka muhiimsan tahay in xisbiyada maanta lagu degdego ma santahay bal aan wax yara eegno waxyaabaha ay ka yiraahdeen xisbiyada hadalada ka soo baxay ما هو ذا حزبية اتصال هان هذا كسوق قادم كودك حكى جرى Somaliland سد حزبية كجرى حزبية ثلاثة هي كل مية يلا بدأ حزبية محاربة قطب يوحد كل مية ويتهاجرين كل يصير أنا كم قلنا أما إذا هذا هم كده جسني مصدق أو قدومية حزبية كل مية سيد عم بوتهاجري وأنا قلنا هي بيقولون حزبية مصر قدومية حزبي قد أحمد ياسين يسوي وكسر شيء يعني ما أنا أوران يعني حزبي إن وانو إن لفران دورنا سو وحياة بدنا سبب غدي وحياة قركون ند قفو مر وهذا قدومي كحجين كحزبي قضب أحمد ياسين وحا ويري أنجو كما بغينا ترتنك لكن وحنا أطرينا ومدى وحنا كدجني سمينته أرنتاني سامينته أي أرنتاني يالن كرتو ayaanu in badan ka dignay buu yiri xisbi mucaarada waa nahay arintanina waxay u taalaa xisbiga haatan talada haya hadii arintan lagu dhaqaaqo madaxweyne Siinayo waa inuu kursiga ka dagaa
oo ka mid noqdaa buu yiri xisbiyada haatan tartamaya marka hadlay si siman marka loo tartamo kuwa la sameynayo iyo kuwii hore u jiray intaba oo la saas uu isaga hadalka u dhigay horta yani doorashadeeda marka la galayo ama bilow waxay ka bilaabataa golaha deegaanka doorashadeeda marka la galayo waxay ka bilaabataa golaha deegaankuna waa meesha xisbiyadu ay ku kala haraan oo golaha deegaanku marka la galo doorashada ayaa saddexda xisbi ugu awoodda badan ugu codadka badan ugu populationka badan ayaa la sharciyeeya kuwii kalena way haraan marka isagu yani wuxuu la jeedaa yani saan anigu yani ra'yigaygan cabiraya marka uu leeyahay yani madaxweyne Siilaan iyo talada ka dago yani waxa weeye ka soo qaado kale hadii la yiraahdo maanta xisbiyadu waa furan tusaale ahaan ka soo qaado maanta hadii la yiraahdo xisbiyadu waa furan oo doorashada hadda ugu soo horeysay ee la qorsheeyay wali inkastoo aanay golaha commission aanay dheeb cayman ku dhufan xilliga la qaban doono laakiin dadkii loo xil saaray in doorashooyinka la qabto tii golaha deegaanka waxaa loo qorsheeyay December sanadkan golaha baarlamaanka 2012 ka loo qorsheeyay golaha guurtida waxaa loo qorsheeyay 2013 ka 2014 kana waxaa loo qorsheeyay tii madaxweynaha doorashada madaxweynenimada waa laga yaabaa inay yeerku isdhaafsan yihiin laakiin haddii lagu galo maanta doorashadii golaha deegaanka ay saddex xisbi iyo kuwa kaleba ka qayb galaan oo xisbigii talada hayay uu maanta hadho oo wax dhici kara maaha waxaan dhici karin markaa sidee ku noqonaysaa inuu madaxweynuhu ama xisbiga talada haya ee kunii kursi kusii fadhiyo taasina dee wax macquula maaha waa arrin u baahan dee dadka sharci yaqaanada ah inay arrintaa ka wacyigeliyaan ra'yigan marka anigu marka waxaan qabaa sida ugu habboon in doorashada soo socotay golaha deegaanka lagu galo saddexda xisbi hadda jira kadibna la qabto golaha baarlamaanka ee ku xiga kadibna la qabto golaha guurtida inta aan la qaban doorashada madaxweynenimada walow ay dhacayso haddii intaa la sameeyo in dib loo dhigo dee taana Somaliland caadi u leedahay doorashada madaxweynenimada dib loo dhigo waayo dee mar iyo laba maaha inta gore dib loo dhigay marka haddii dib loo dhigo doorashada madaxweynenimada dib loo dhigo oo markaa laga soo hormariyo doorashooyinka golaha deegaanka markaana ay wada tartamaan xisbiyadu wada furan yihiin sanad kadibna markaa doorashada madaxweynenimada la qabto waa sida anigu dee ay ila muuqato option kale isna furan waxa weeye in doorashada deegaanka hadda 2 sano dib loo dhigo oo the end of 2012 ka la yiraahdo hal qabto doorashada deegaanka oo xisbiyadu inay furan yihiin inta ka horeysana laga shaqeeyo sidii sharci dastuuriya oo lagu rajis gareynayo dhammaan xisbiyada oo dhan yani system dhan oo habaysan oo ku saabsan sharciyadii nidaamkii dastuurka ahaa uradii isticmaal gareynay intaana laga sii shaqeeyo